Real Madrid waxay wajahaysaa xiisad sii kordhaysa iyadoo xilli ciyaareedku dhammaad ku dhow yahay, waxaana xaaladda kooxda ay gaartay meel xasaasi ah taasoo si cad uga muuqata tababarkii ugu dambeeyay. sidoo kale wargeyska Isbaanishka Marca muran kulul ayaa ka dhex dhacay Federico Valverde iyo Aurelio Tchouameni ka u dhawaaday isbedelo gacan ka hadal kadib markii si adag iskula qabteen taako inta lagu guda jiro tababarka. xaaladda ayaa sii cakarantay iyadoo labada ciyaaryahan isla riixeen isla markaana muran adag dhex maray ka xitaa sii jiitamayay ilaa gudaha qolka labiska taa oo dhalisay hadal hayn weyn oo ka dhacday xarunta tababarka Valdebebas. dhacdadan ayaa muujinaysa kala qaybsanaan sii kordhaysa oo ka dhex jirta kooxda xilli Madrid ila daalaa-dhacaysa xilli ciyaareed adag ay ku fashilaan tartanka koobabka ay ka qayb gashay dhammaan, isla markaana ay jiraan khilaaf u dhexeeya ciyaartooyda qaar taa oo keentay isfahan la-aan ka dhalata gudaha kooxda, halka qaarkood wararka ay sheegayaan in isbitaal loo qaaday ciyaaryahanka Federico Valverde kadib gacan ka hadal dhexmar isaga Aurelio Tchouameni. sidoo kale xiriirka tababar Alvaro Arbeloa ayaa u muuqda mid degan iyadoo la sheegay in qaar ka mid ah ciyaartooyda ay xiisad kala kulmaan qaabkiisa maamul xilli kooxda ay wajahda cadaadis iyo dadaal maskaxeed oo sii kordhaysa. tani waxaa la socotaa dhacdo dhowaan la sheegay dhex martay Antonio Rudiger ka oo dharbaaxay Alvaro Carreras, inkastoo labada dhinac ay isku dayeen inay yareeyaan arrinta. haddana xaqiiqda gudaha kooxda waxay muujinaysaa jawi kacsanaan ah. maamulka ugu sarreeya Madrid ayaa isugu yeeray dhammaan ciyaartooyda shir degdeg ah si looga hadlo arrimaha xasaasiga xilligan taagan. halkii koobabka laga sugayay Madrid inay ku guuleysatay xilli ciyaareedkan, sheekadu waxay noqotay ciyaartooyda meel laba in ayagu gacmaha iskala tagaan ama isdagaalaan.